حسين حرد شيء waxaan mahadcelinayaa website-ka Arab.net waxa leeyahay horumarka weyn ee reer awdal gaaray oo noqday qof la sii dhaweeyo iyo qof la soo dhaweeyo oo wax faa'iido lahayn wax aliya wax ugu jiraan jirin iyo cajalada la yiraahdo maxayga Somaliland maxaa lagu diiday isaas oo cajalada loo saaro marka meesha wax aliya wax jiraan ma jiraan war marka waxaan leeyahay meesha saaqsoor ma sama caawinada iyo qadmo taratada waxa loo waayay Somaliland la sheegayo hallo iyo barasaabka gobolka awdal ninka sheegta ee beeshinka odayga beeshinka halkan ay qolka keenay ka doonto qolka soo socdo oo isaguna waxba aanan haynin oo beeshiisa isagoo qabada laba qof xambaarsan iyo gobolka awdalka qofka laba arjacna soo xambaarsan buu keenay halka dhalinyartii gobolka marka taay bilaaban iyo aqooyahankii reer awdal oo isagana ninkii loo weynaa lagu khasaaray oo qalbal la yaro reerkiisa saacad masalla jeesaya oo maxayga Somaliland maxaa lagu diiday oo ka masid isaga waa lagu khasaaray laakiin ninka Cabdi Barafsor Cabdi Ismaaciil Samasar hambaliyaan u tiraan isaga waa nin Soomaaliyeed waa muwaadin waan hambaliyeen isaga laakiin ninka kale waa khasaare Ahmed khasaare leeyahay meelaha ay budadka الله ينري أرجيسه كقصصلية وحاليا فقروا أيام ما هي أنت عارفين كيسة وين بكشك دولة أمريكا بعد كورة مدارات ما تقصد البلجيم مدارات كقصد البلجيم هو حق إن حتى عوض الله قبل هاي ومدارات ترين كوية شعور تو تذكر الله يكون موجودين أيام وأنا حق وايو بالكل يعني وحي مش عارف كي ما تقال تيجي كل مرات تذكر الله بارسات لقد يقول ده وحده هاي لقد حقودين موجينيان سوماليمود موجينيان أمسنان الصومالي فدراليزك إيه أمسي موجينيان وبيل قرى وحدوني سبوسشرة دتك الصول إيه السناج قرمدا ميدوبي ميدوب أفريقيا دولة أمريكا كم ميدوب يوروب أنتوا ما يدولة فدرالك الصومالي ويقعدش دول كوبو وإن إذا ما لعام الصوم سيدا أقول لك صاحب بدل الله كنا وهي تدريدا ومعطية أو فرادقتها إن بيش يساقوه شيء إن الحسوقه oo ganacsatada ku bixsan raashin iyo hub iyo rasaas waayo ganacsatada beesha isaaq waxay ku ballan qaadeen sadoo gaari oo raashina halkaas Siiraayana wuu rasaasta iyo naftada bixinaya halalayo dad xoolo dhaqata oo dhulkoodii jooga waxaan u sheegayaa beesha isaaq in dagaalkaas ku fidi doono geeska oo dhan qabayladu wada degan yihiin waxa faa'iido ayna ka heli doono hadaa dayn weydana waxa arki doontiin idigoo sheeganayo hore wargada bulshada anagu isaaq maniga ku baxaya aftirsiinkiina xitaa kontrabaan noqon. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.